labada qof oo wax ka dhaxeeyaan haddaynan iscafin arrintooda ilaahay agtiisa waa la dib dhigaa dambi dhaafkooda waa loo kaadiyaa wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam tuftaxu abwaabu aljannati yawma al-ithnayn wal-khamiis wa yawma al-khamiis jannada irdaheeda waa la furaa maalinta isniinta iyo maalinta khamiista fayaghfiru Allahu likulli 'abdin la yushriku billahi shay'an ilaahay wuxuu u dhaafaa adoon kaste oo ilaahay aan u shirki yeelin dambigiisa ilaahay waa dhaafaa qof kaste oo ilaahay aan u shirki yeelin ilaahay waa u dhaafaa illa rajulan nin mooyaane kaanat baynahu wa bayna akhihi shahna asaga iyo walaalkiis cadaawadi ay ka dhaxayso labadaas waa loo kaadiyaa fa yuqaalu anziru haadayni hatta yastaliha waxa la yiraahdaa labadan u kaadiya ilaa ay soo heshiiyaan saddex jeer baa malaa'igta la yiraahdaa oo lagu celiyaa anziru haadayni hatta yastaliha malaa'igay u kaadiya kuwaan loo dhaafi mahayo ilaa ay waxa weeyaan soo heshiiyaan waa la reebaya arintooda ka waran dadka intaas oo sano cadaawadu ay ka dhaxaysay oo aan is salaami karin oo aan is arki karin oo khamiis iyo isniin kasta ka qatan ilaahay dambi dhaafsigiisa ka qadahay ka war waxa makhluuq loo dhaafayo oo ilaahay aan u shirki yeelin oo dambigooda la dhaafayo ayaga waa laga reebaya sanadkii hore ka haray sanadkan buu ka haray bilahan buu ka haray maalmahan buu ka haray waligiis arrintiisa waa taagan tahay ilaa ay soo heshiiyaan maxay u jirtaa ilaahay inuu amalkooda kor yeelo dambigooda u dhaafo inuu walaalkiisu tago ilaa waa ku cafiyo intaas wuxuu ku helayaa fadiilo joogto ah oo isniin iyo khamiis kasta loo dhaafo dambigiisa ay ku helaan ninba khudbo wuxuu ka dhageystay cafiga ka hadlaysa masaajid ninbaana qola ayaana gabadhiisa dilay diyadii ayaana la isku haystay markuu cafiga iyo qiimihiisa u dhageystay buu banaanka u baxay telefoon buu diray wuxuu yiri gabadhaydii aad disheen diyadii waa idin cafiyay ilaahay dartiis qaraabadiisina waa la hadlo wixii waan cafiye ogaada intaas ay ugu filan gabadhiisii oo la dilay ayuu qoladii dishay iska cafiyay nin kale ayaa wiilkiisii la dilay dulmi iyo gardarro lagu dilay kii dilay waa la soo qabtay waa la soo xiray maanta dambe go'aan iska qaato iska cafiyay oo faraha ka qaad adiguna waxa laga yaabaa dhiig ina cafisi iska daade hadal lagu yiri inaad cafin karin hadal walaalka kugu yiri oo aad dhibsatay maalin aad xoogaa yar uga baahato adduunyaha aad dhibsato oo ku diiday intaas inaad cafin karin dadna waxay cafinayaan wiil boqollo waa dhiigiis iyo gabar kontoleey dhiigeed ayay hal mar cafinayaan oo iska dhaafayaan bishaan barakaysan oo inagu soo socota aynu ku qaabilna barakallahu fiikum ina safinu waliba si gooniya waxaan leeyahay walaalaha wada dhashay oo aabayaalkooda hanti badan u tabceen oo aabayaalkii markay dhinteen dhaxalka isku haysto oo guriyihii isku haysta aad bay u fara badan tahay bilaaba safiya iskuna tanaasula hantida aad ku diriirsan tihiin oo maalin walba maxkamadaha la taagan yahay oo dacwadoodu meel walba ay taagan tahay aabihii abuuray oo sababta u ahaa oo shaqeeya waa ka tagay idinkuna waa ka tagaysan walaalnimada ayaa ka qaalisan islaamnimada ayaa ka qaalisan cafiga la iscafiyo ayaa ka qaalisan ilaahay ka baqo iscafiyo oo isku tanaasula walaalka waxa uu ka qaatay haday yihiin adduunyo u cafi hadduu guri ka qaatay hadduu beer ka qaatay hadduu dhul ka qaatay maadaama walaalka uu yahay walaalnimadu qiimaha iyo qaaliga ay leedahay way baaqi ahaanaysaa adduunyadana waa iska baaba'aysaa haddii kale waxay dhaxlaysaa ilmaha idinku aad dhashaan cadaawadaas ayay dhaxlayaan aabayaalka dhaxlayaan sidaasay ayaguna u kala taagnaanayaan waxaan aqaanaa ilmo badan oo awowgood xoolihii uu ka dhintay aabayaalkood isku dagaaleen ayaguna ilaa yoomina hada sidii isku dagaashisan oo aan xabad isku daran cadaawadaas aad beerteen oo ilmihiina aad u beerteen inta ay socoto dambigoodu waa idin socdaa waa adduunyo maanta adduunyo joogtaan berina waa aakhiro iscafiya
oo isku tanaasula oo isgacan qaada oo isku soo dhawaada oo isjeclaada ilaahay waa idin jeclaanaya dambigiinana ilaahay u dhaafaya